السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب شرفت لواني سلامي ما شاء الله ميل بأجوبتين سومال وين وحن الله فقرتويا مدحا إيجسارتين مدح ميل كويل السار ما جرى ومايا مدحا إيجسارتين ما شاء الله ما أنت ستتلقوا ورقتين بقى وحك هذا الرواء ولا شيء ندير نروس وحاجة كده أكفر يو هوب علوس دقايان كده إلهي هو داف حاجة كده marka waxa leeyahay aniga ra'yigayna ka dhibtaarba adiga ra'yigaada commentiga ku furan ma sha Allah hatta igu cusub tahay subscribe ideh like share comment qurux badan iyo soo qor walaasha macaana dhiirigelinaysa wax kaaga qurux badan ma lahan wallahi aad u faraxsanahay ma sha Allah nadiiro xaajigeed ilaahay u dhaafo ya marka ma sha Allah barxooga ila dhageysta asxaabta sharafta leh xoogaa wajiga daa dhididka dareemoysina kuleela jira ma fahanteen habeenay inta waqtigan ii duubaa kuleel haddii aad kuleel qabtid waxa ku dhac comment igu soo qor aniga kuleel haddii aad wadan qabow joogtidna igu salaan wadanka qabowga badan social media سوقي عيدي كلتين أما كل دمانيا هذا ستيله لقميا ما شاء الله إلهي ودافع نذيرني وحاجة كذا وما قشينا أملينا يا حاجة كذا وحده هاي نذير قابل رادي لهذا نذير سان رادي لهذا نذير إيش بون رادي لهذا نذير إيش الله رادي لهذا نذير قابل رادي لهذا نذير نيكنس رادي لهذا عاد بوجع هاي إنا فرنا لجماعة وهالتالي marka qofka video inuu raadiyo ku maqana oo hadana ku leeyahay marka asxaabta sharafta leh waxa soo jiitay waxay tahay nadiir nolosheeda isbuuc ka hor oo maleynaya week ka hor ayay hees la ooynaysay oo dareenkeeda soo gudbisay oo jaceelkeeda nolosha ay gashay ay malaysan laaday riyamiya mise noloshan waa nolosha ku dambeysay gabdhaha Soomaaliyeed badankooda waxa soo mari kara nolol dhibaato badan haddii ilaahay nolosha u qurux badiyay oo nolosha waqtiga u heeliyay maaha inaad ka xumaatiin maaha inaad macnaha gabadha daba dhigatiin nadiira dad baa iska daba dhigtay dad baa qabiil ku tilmaamayo dad baa qabiil ku haystay dad baa aabooyinta la soo dhumiyay la soo qalday dhahay anaga dhalna dheh intaas oo dhan dad baa qarash ka bixinayo inay nadiira ay bahdilaan taasoo keenayso horumarkeeda laga xun yahay jaceelka ay gashaa laga xun yahay dhibaatada ay laga xun yahay shalay markay dhibaataysaneed nolosha gururka badan ay dhibaatada badan galaysay waa lagu faraxsanaa laakiin maanta waxay heshay qof u noqday abti adeer aabo hooyo walaal jaceyl wax waliba marka Soomaaliya waxa qurux badan qofka bini aadamka nolosha markuu galo in ma sha Allah loo qoro teeda kale dadka aad daawanaysiin oo youtuberada ah sida anoo kale marka aragtin in qof ku dhaganahay marka aragtin in qof aan wuxuu ahaan ku tilmaamay marka aragtin qof qabiil kale inaan ka dhigayo marka aragtin in wax kale ka dhigayo waa inaad qofka aadan daawanin oo dislike siisiin qofkan wuxuu rabaa qofkan social media inuu wax dacaayad u bariyo wiilkan duleelo badan wax laga tusay wuxuu dhahay markaan shukaasanayay macnaha sheeko naga wada dhaxaysay sheeko noo socotay baa la isku day in laga furo waa macnaha inaan guursanin la isku dayay waxyaalo badan la ii sheegay waa aamini waayo dhahay hadda aan guursaday oo gabar ii dhashay oo caruur ii dhashay miya furaya dhahay miya warkaada yeelaya maya ma yeelay jaceelkeyga umba ii cad marka adi wiilow dhuntay maxaa ku dhuntay marka gabar aadna dhuntay maxaa ku dhuntay nadiira waxa toosh ka dawato waxa dhibaato ka dawato
dad ayada yaqaano, dad ayada nolosheeda hore ogaay, dad nolosheedii dhibaatada ay la soo martay maanta guurka ay ku jirto iyo wiilka ay guursatay ay did ku faraxsanayna jiro. wallahi qof hadaa aragti la daba dhiganayo macnaha raadkiisa lala joogo waa qof noloshaas nolol fiican galay. teeda kale tan dadka markay caanka noqdaan ani waxaan garawaay qofka markuu caan noqdo ayaa ceeb loo yeelayaa, ceebtaanu leeyahay, kanaanu leeyahay, waabuu halkaas maray, waabay halkaas istaagtay, waabuu wiilkaas halkaas maray, waabay gabar halkaas martay. intuu qofka shacibkii waxba lagama sheegaan. markuu caan noqdo laakiin waxyaalo badan laga sheegaya. taas laakiin barbaleen ma lahano. dadka adduunka caanka ahba atoorooyinkii atirishaashaba waxba laga sheegaa. waay dadkan ku jira wariyaha ah dadka waxbay rabaan ama been ama run waxba inay u gudbiyaan qasab waay. marka waxa qurux badan waxa taas soo bandhigaysid inaad qofka ku fogaatid ma fiicna. anigaas qof waa ka hadlaa, anigaas qof waa ka ku xadgudbaa, laakiin ma jecli inaa heerkaas ina ku xadgudbo. qaladaadkaasna ilaahay ma tuso. qof rin iyo gabar orta nolol gashayna inaa aniga ku xadgudba absolutely lagama yaabo. marka Nadiir waxaa leeyahay cadowga Allah ka qabto, dadka ku maqan xaqa Allah tuso. Nadiira ma ahan inaad daba dhigatiin, ma aha inaad qabiilaan jirin aad ka sheegtiin. aabiyaal waxaan arkay soo dhumay oo la leeyahay anagaa dhalna dheh. wax walbaa la sameeyey, dhan walbaa laga maray, wax walbaa lagu sameeyey, nothing ilaa hadda waxbaa laga la'yahay. intaas maxaa la raadinayaa in wiilkaas laga furo. waa akhiiran ayaga soo fariistay wataa maqlaysiin oo dhaani wax walba hadaa sheegtid ma furaayo, wax walba hadaa ku hadashid ma furaayo. marka asxaabteena sharafta leh, Soomaalideena macaanta badan oo quruxda badan, ilaahu Soomaali noo daa. wallahi ani dadka ka dhashay aad u jeclahay Soomaali. ilaahu Soomaali iga dhig, ilaahay iga dhig inuu ku faraxsanahay. haba ii xumaatee ajaanibta kale way iga fiicayiin, laakiin dhibka yaala wuxuu yahay dhibaatada taala waxay tahay qof baa qalad galaayo, qaladkii waa loo saxaaya. marka iska daaya. Nadiirana nolosha kuma xumaysaa leeyahay. cadawgaana ha jabo maasha Allah. wiilasha social media ku jiro youtuberista ah iyo gabdhahaba waxaan leeyahay dadka Nadiir ku maqan ka wareejiya, noloshaada fiirso. hadday kaa xumaatana iska bedel. shaati leewa noloshaan waa iska bedeli kartaa, nolol kale waa geli kartaa. haddii nolol xun ku jirto ilaahay bari inuu ilaahay kaa bixiyo. ma ayna Nadiir ku maqanaatid, ma ayna Nadiir ninka ka furaya tiraadid. marka asxaabta sharafta leh sidee kula tahay ku soo qor ra'yigaada. Nadiir nolosha ay gashay inaa u soo duceysiin inay ku sii waarto. waxaan fan waa ka weeyahay nolosheeda baa la daba haystaa, nolosheeda ayaa lagu daba dhagan yahay, fan laguma haysto. waxyaalo badan shalay haddii qaawneed shalay qaawneed oo ku dhahay asaga warku waa ku soo koobay. hadda may qaawan tahay mayana hadda anaa jecel. marka waxaa ka keeni kara dhibaato badan ku dhacday. tooshka ka daaya qaseewa, tooshka laga dhaafo. labada is jecel waxaan leeyahay ha waarto, labada is jecel ha waartaan leeyahay. insha Allah dii oo videogan aan ku cajibi geliyay like saar insha Allah, like badan saar, subscribe comment qurux badan ii soo qor. halkaas ayaa ugu baxaya. Nadiir ha laga qaleeyo. mid kale ku darsanaa waxay tahay waxaa nasab ah ruuxi jannada lagu arko. ilaahay jannada nagu wada kulmiyo, wadada xaqa Allah nagu hanuuniyo. bye bye.